kulan wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ururka onlf oo si adag uga hor yimid qorshaha cusub ee abiy axmed uu ku dhaqaaqay. haddaba muxuu yahay qorshaha abiy axmed uu wado ee ka caraysiiyey ururka markaasi onlf? sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa eritrea oo ka digtay qorshaha labada biyood ee abiy axmed uu damacsan yahay. intayna gudagelin marka koowaad soo dhawow, halkan waa durdurka wararka. subscribe tena saarta hilaabin muuqaalkanna aad like garayso si dad badan uu u gaaro. haddii aynu ku bilowno warbixinteenna, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa markii ugu horreysay sheegay in Itoobiya ay haatan diyaar u tahay in shidaalka markaasi la soo saaro lagu isticmaalo suuqyada maxalliga ah si uu gacan uga geysto kobcinta dhaqaalaha ee dalka. ceelasha shidaalka ee la daafuray ayaa ku yaala deegaanada Kaali oo ka tirsan degmada Dhoobaweyn ee gobolka Qorraxay iyo degmada Elele ee gobolka Shabeelle, kuwaasoo dhammaantood hoos yimaada dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. hase yeeshee ururka ONLF ayaa si cad markaasi uga hor yimid qaabka ay dowladda dhexe ee Itoobiya u maamulayso khayraadka laga helo deegaankaasi. war-saxaafadeed ay soo saareen ayay ku sheegeen in aan dadka deegaanka lagala tashan qorshaha soo saarista shidaalka, islamarkaana aan si cadaalada loo wadaagin dakhliga ka soo baxaya. afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge oo la hadlay warbaahinta ayaa markaasi ku caddeeyey dowladda Itoobiya in shidaalka deegaanka ku wareejisay shirkado shisheeye iyadoon markaasi shacabka deegaanka wax ogolaanshaha laga weydiin. sidoo kale waxa uu xusay in arrintani ay liid ku tahay danaha dadka markaasi Soomaalida ah ee deegaanka, maadaama aysan ka helin wax faa'iida oo muuqato. Hirmooge ayaa sheegay in dowladdu aanay weligeed qayb ka siin khayraadka dalka dowlad markaasi deegaanada kale, isagoo tusaale usoo qaatay meelaha sida Wajaale iyo Jabuuti oo uu sheegay in ay bixiyaan dakhli markaasi aad u badan, balse aanay dadka deegaanadaasi waxba markaasi ka helin. dadkeenna lagalama tashan, xitaa maamulka deegaanka laftiisa lagalama tashan, ayuu yidhi. sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in ururka ONLF iyo shacabka deegaanka ay xaq u leeyihiin in markaasi ay ka go'aan gaaraan sida dhulkooda iyo hantidooda markaasi loo maamulayo. wuxuu tusaale usoo qaatay dalka Australia isagoo sheegay in hal god oo shidaal aan laga qodi karin deegaan haddii aan dadka deegaanka markaasi aysan ogolaan. dadaal lagu doonayay in markaasi jawaab laga helo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida oo ku aadan eedeymaha ONLF ayaa haatan markaasi guulaysan weli, maadaama aysan weli wax warbixina aysan markaasi ka soo saarin. ururka ONLF ayaa sidoo kale muujiyey walaac ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga shidaalka, iyagoo ku dooday in nidaamka hadda jira uusan markaasi cadaalad ahayn. natiijadu ma noqonayso waa la soo saaraya oo faa'iiduu kuu leeyahay oo anaa kuu qaybinaya oo anaa markaasi kuu cunaya, adna waa in aad ku faraxsanaataa. taasi ma shaqaynayso, ayuu yidhi Hirmooge oo sheegay in go'aanka arrintaasi ay leeyihiin Soomaalida. marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, khubro ayaa horay u saadaaliyey in Itoobiya ay sannadihii ugu horreeyey ka heli karto shidaalka dakhli dhan 1.2 bilyan oo dollar, iyadoo la filayo in sannadaha dambe uu kor u kaco oo uu gaaro ilaa 7 bilyan oo dollar. ururka ONLF oo horay hubka u dhigay islamarkaana ugu biray axsaabta siyaasadeed ee Itoobiya ayaa haatan u muuqdo kuwo markaasi aan dhag jalaq loo siinayn eedeymaha ay markaasi jeedinayaan. haddii aynu aadno dhinaca Eritrea ayaa si adag markaasi u cambaaraysay xisbiga talada haya ee Itoobiya BB ee barwaaqo, waxaana markaasi ay ugu yeertay hamuun xad-dhaaf ah oo ku aadan isku xirka webiga Niilka buluugga ah iyo badda cas, iyadoo hadalladii u dambeeyey ee Addis Ababa ee ku saabsanaa labadan biyood ku tilmaamtay kuwo la yaab leh oo caqliga markaa ka baxsan. war qoraala oo uu soo dhigay bartiisa X ee Twitterka ayuu wasiirka warfaafinta Eritrea Yemene uu ku sheegay in xisbiga ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed uu wado sheekooyin marin habaabina oo lagu qilsameynayo damacyo goboleed oo aan lahayn saldhig juqraafi iyo mid markaasi sharci toona. ma jiro wax isdhexgal ah, isgoys ah ama kulan ah oo ka dhexeeya webiga Niilka buluugga ah iyo badda cas, ayuu yidhi mudane Yemene Meskel. daminka xisbigan waa mid aad u foolxun oo liita oo aan markaasi
la iibin karin xitaa marka la eego halbeegyadii hore ee markaasi khiyaanada. Wuxuu sheegay in hadalladan ay ka turjumayaan dabeecad soo noqnoqotay oo ah marmarsiyooyin marin habaabin ah oo ay adeegsadaan awoodaha gardarrada wada si ay ugu qiilsameeyaan damacyo markaasi ballaarsi ah, isagoo ka digay in hadallada noocan oo kale ah ay hurin karaan iska hor imaad kale oo aan markaasi loo baahnayn oo ka dhaca gobolka. Asmara waxay ka digtay dandaansi markaasi la soo abaabulay. Meskel waxa uu sheegay in fikradda labadan biyood oo markii ugu horreysay uu soo bandhigay Abiy khudbadiisii u dambeysay ee baarlamaankana ku sheegay daaha ka rogtay damacyo dhulballaarsi ah oo lagu markaasi ekaysiiyey marmarsiyooyin taariikhi ah ama mid dhaqaale. Wuxuuna markaasi ku misaalay marmarsiyooyinkii xilligii gumaysiga ee dhulballaarsiga. Awoodda gardarrada wadda waxay had iyo jeer markaasi alifaan marmarsiyooyin marin habaabin ah si ay ugu qiilsameeyaan damaca ay u qabaan xuquuqda iyo khayraadka deriskooda, ayuu yidhi. Eritrea waxay ku celisay in aysan wax niyada u hayn dagaal, balse ay difaaci doonto madax bannaanideeda haddii marka la dandaansado. Madaxweyne Asias Afwerki waraysi uu bixiyey dhowaan waxa uu ku sheegay in Asmara aysan wax sheegasho dhul ah ama damac ah ka lahayn dal darisla ah, isagoo ku booriyey Itoobiya in aysan shacabkeeda ku ridin dagaal aan la saadaalin karin natiijada ka dhalan doonto. Niyad uma hayno dagaal, ayuu yidhi Afwerki, laakiin sida taariikhdu markhaati ka tahay waan naqaanaa sida loo difaaco dalkeenna markaasina lagu soo gardarroodo. Meskel ayaa fariintaas ku celiyey isaga oo qoray in Eritrea aysan ka xanaaqi doonin hadallo aan laga fiirsan ama goodi iska hadala. Xiisaddu waxa ay sii korortay kadib warqad ay Itoobiya u dirtay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, taasoo Eritrea iyo kooxaha mayalka adag ee Tigrayga ku eedeysay in ay samaysteen isbahaysi cusub si ay dagaal markaasi uga dhan ah dowladda Itoobiya u qaadaan. Eedayn ay markaasi beeniyeen Asmara iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigrayga ee TPLF. Warqadaas oo markaasi ku taariikhaysan 2 Oktoobar waxa uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda, waxaana markaas sidoo kale dib ay ugu caddaysay damaca Itoobiya ee Addis Ababa ee ah inay hesho marin markaasi madax bannaan oo badeed iyadoo loo marayo markaa waddo sharci ah haddii ay suurtagal tahay, iyo in markaasi awoodda military haddii loo baahdaba, taasoo walaac ku abuurtay dalalka deriska la ee markaasi gobolka xitaa Soomaaliya ay ku jirto. Eritrea waxay warqadaasi ku tilmaamtay rubaayad markaasi marin habaabina iyo aflagaado lagu sameeyey garaadka shacabka Itoobiya iyo kan bulshada caalamka. Maalin kasta siyaasadda joogtada ah ee xisbiga barwaaqo waxa ay ku wareegsataa sidii si qasaba loogu heli lahaa marin badeed, ayuu markaasi qoray Meskel. Kani waa dandaansi khatar ah oo lagu soo markaasi labisay luuqad diblomaasiyadeed, ayuu yidhi wasiirka markaasi warfaafinta Asmara. Haddaba haddaan dala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan like saar, siina share garee si dad badan uu u gaaro.